sanado badan oo rafaad iyo dhib ay ku haysatay gudaha Liibiya iyo toobiyaha saxariirta badan ee loo sii maro wadankaasi ayay maanta dib ugu soo laabteen ciidooda hooyo. waa 49 xubnood oo u kala dhashay Somaliland iyo waliba dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Maxamed Xaashi waxaan maqnaa sanadii bad waxaan ku sugnaa Liibiya kunaantii waxaan kala kulmay dhibaatooyin aad u badan nabarkan aad arkayso iyo nabar ka waaweyn waxay iga soo gaadheen Liibiya alxamdulillah maanta mar haddii aan ka nabad qabo wadankaygina aan nabad ku yimid waa Ilaahay mahadi yaa ku jirdilay markaa nabarada yaa ku dhuftay nabaradan waxay ku dhuftay magaf markay soo furtay soo daayay waxaan soo furtay dawladda Soomaaliya taasi oo kunaantii aan aad iyo aad ugu mahadcelinayno waxaan leenahay wad ku mahadsantiin family-giina ka waran ma wada hadashay family-gii waan wada hadalnay waana ku faraxsanahay inaan soo noqdo nolosheedana aad bay ugu farxeen anoo nabad inaan soo noqdo aad u mahadsantahay